Maria waa gabadh dhalinyaro haysta 2 caruur ah. Waxay dagaal adag kula jirtaa nolosha iyo waayahayga. 3 sano ka hor ayaa ninkeeda xabsi 5 sano lagu xukumay. Markooda horeba waxay ahaayeen qoys danyar ah. Iyadii labadeeda caruur ahayba si dhammaystiran waxay ugu tiirsanayeen isaga. Wuxuu ahaa wehelkooda iyo kay waxay quutaanba siiya. Laakiin markii la xidhay, waxa Maria ku bannaanaatay daaqad weyn oo wax walo xun ugu soo galeen. Cadowga ugu weyn ee la dagaalamaysa wuxuu ahaa gaajada iyo inay caruurteeda waxay cunaan u hesho. subaxa hore kolkuu waagu bariyay ka lahday suuqa aada. Waxay tagtaa goobay boqolaal dumar iyadoo kale arsaaqda alla ka raadsadaan. Waxay fadhiistaan gidaarada suuqa iyagoo rajeynaya inay la kulmaan qof meherad in loo masaxo u baahan, ama qof guri cusub dhistay oo in loo meelo doonaya, ama qof wuxuun u dirsada. Iyagoo ujeedadooda ugu horeysay tooda ugu dambaysaaba waa inay maalinka waxay quutaan helaan.